السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كنتو عنا ونكسن داوديال كسو دوادا وركا شبكة دوار تي في qodobadaadku maqli doontaan waxa kamida ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed oo howlgal ka bilaabay deegaanada Koonfur Galbeed marwada madaxweynaha Soomaaliya oo hubyo ka dhagax dhigtay xarun caafimaad madaxweynihii hore ee Hirshabeelle oo ka hadlay ammaan darrada wadada xiriirsan Muqdisho iyo Jowhar Mahdi Guuleed oo shaaciyay arrin madaxweyne Farmaajo uu ku howlan yahay qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso labaan idin haynaa daawadayaal haatan ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan marwada koobaad ee madaxweynaha Soomaaliya Marwo Seenab Cabdi Macalin oo ay wehelinayaan madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Galmudug Ali Daahir Caydiid iyo gudoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka Galmudug Maxamed Nuur Gacal ayaa si wada jir ah uga dhagax dhigay degmada Hobyo ee gobolka Galmudug isbitaal loogu talagalay daryeelka caafimaadka hooyada iyo dhallaanka marwada madaxweynaha ayaa sheegtay in ujeedkeeda koobaad yahay horumarinta caafimaadka ee bulshada Soomaaliyeed ayna doonayso in deegaano badan ka hirgelin doonto adeega caafimaad oo bilaash ah iskugu nimaado si aan u dhagax dhigno xarun caafimaad oo lagu talagalay inay ka faa'iideystaan dadka ku nool degmada taariikhiga ah ee Hobyo iyo nawaaxigeeda waxa inaan xaruntan hooyadii dhallaanka u istaago igu dhaliyay kadib markii ay soo gaareen dhibaatooyin caafimaad ay la kulmaan hooyada iyo dhallaanka Soomaaliyeed inkastoo uu qorshahaygu yahay inaan xarumahan ka hirgeliyo gobollo badan oo dalka ka mid ah haddana waxaa sharaf ii ah inaan anigoo ka faa'iideysanayo fariintii haweenka Hobyo ay u soo dhiibeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed inay noo suura gashay inaan xaruntii ugu horeysay ee noocaan ah aan ka hirgeliyo degmada Hobyo waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iideysto inaan si gaar ah u bogaadiyo uguna mahadceliyo hay'adda Qadar Charity runtii garab istaagtay inay ila hirgeliso mashruucan aan ugu talagalnay hooyadii dhallaanka xafiiska mashaariicda madaxtooyada iyo howlwadeennada hay'adda Sayna Macalin Foundation waxaan rabaa inaan la dardaarmo bulshada Soomaaliyeed ee ku nool degmada Hobyo iyo nawaaxigeeda xaruntan adinka ayaa iska leh waxaa loo dhisay in lagu daryeelo dumarkiina iyo carruurtiina sidaas awgeed waxaan si gaar ah inkaaga codsanayaa inaad dhammaantiin garab istaagtaan oo aad taabagelisaan xarunta iyo weliba daryeelideeda gaar ahaan gabdhaha Soomaaliyeed oo ah madaaliyaasha qaranka madaxweyne ku-xigeenka Galmudug iyo xildhibaan ubax oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa dhankooda waxa ay bogaadiyeen qorshaha ay marwada koobaad ee qaranka Soomaaliya Seenab Cabdi Macalin oo kaashanaysa hay'adaha kale ku hirgelinayso xarumaha caafimaad ee hooyada iyo dhallaanka gaar ahaan tan Hobyo laga hirgeliyay hooyada iyo dhallaanka in loo dhiso xarumo lagu daryeelo caafimaadka iyo waxbarashada muhiimad gaar ah ay Galmudug u leedahay marwada iyo organizationkeeda waa uma hadcelinayna halkan kaliya ma ahan inay wax ka qabtaan barawana waa ogeyn Sool iyo Sanaag iyo gobolka kalena waa ognahay inay ka socoto shaqo fiican marwada waa soo dhaweynayna shaqada qiimaha leh qaranka u hayso waxaan u mahadcelinayaa walaashay First Lady-deena gabar Aliya Saynab oo ka mid ah gabdhaha reer Galmudug oo horeysa dhismaha la dhigay maanta dhagax dhigeedu uu yahay waxaa la rabaa in la taageero waxaa la rabaa qof walba qoriga meeshuu yaalla inuu ka qaado waxaan hoos u maqlay hadda in wiiga dambe dhismaha bilaabi doono insha Allah waxaan ugu leedahay abaalaan dhammaanayn taliyaha ciidamada dhulka Soomaaliyeed General Aamin Cabbaas Cali oo ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa halkaasi ka bilaabay abaabul dagaal oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab oo ku sugan deegaano ka tirsan maamul goboleedka Koonfur Galbeed taliyaha ayaa la kulmay saraakiisha ciidamada dawladda dhexe iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ee ku sugan magaalada Baydhabo isagoona kala hadlay sidii loo bilaabi lahaa dagaalka dhan ah ururka Al-Shabaab taliyaha oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in saraakiisha uu la kulmay uu kala hadlay xaaladda ciidamada ay ku sugan yihiin iyo sidii loo abuuri lahaa iskaashi wada shaqeyn oo dhexmara ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Koonfur Galbeed ee dagaalka kula jira Al-Shabaab waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya gaar ahaan taliska ciidamada xoogga dalka ay ka go'an tahay sugidda amniga guud ahaan dalka iyo dardargelinta howlgallada ka dhanka ah dagaalamayaasha Al-Shabaab kormeer caadi booqasho caadi ah iyo socno iyo lin kurgalow xaaladda ciidanka isla markaasna fadaan ku faa'iideysano arrimaha
markaas ahay ciidan ka mahadnaqay taliyaha qaybta wasiirka taliyaha ciidanka booliska mudanayaasha kale maamulka ka socdayana ciidan ka mahadnaqay. hadalka taliyaha ciidanka dhulka Soomaaliyeed General Abbas Amin Ali ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhawaan al-shabaab ay weerareen saldhigyada ciidamada dawladda ay ku leeyihiin deegaanka Daynuuna ee duleedka magaalada Baydhabo. madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusable oo ka hadlay falalka amni darro ee mararka qaar ka dhaca wadada isku xirta magaalooyinka Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo Jowhar caasimadda maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay inay ku lug leeyihiin arrimo siyaasadeed. Cali Cabdullaahi Cusable oo la hadlayay idaacadda VOA laanteeda afka Soomaaliga ayaa sheegay in waqtigii uu joogay ee uu ahaa madaxweynaha Hirshabeelle amniga wadadaas uu ahaa mid wanaagsan ha yeeshee haatan aysan mas'uuliyiinta mari karin isagoo tilmaamay in sababtu ay tahay arrimo siyaasadeed oo ka jira deegaanada maamulka Hirshabeelle. uu sheegay in sababaha keenay amni darrada wadada xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar ay tahay mid siyaasadaysan oo lagu doonayo in lagu yareeyo dhaqdhaqaaqa xildhibaanada maamulka oo badankooda soo aada magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. waqtigan joogay xildhibaanadu waqtigay doonaan ay hore iyo gadaal u socdeen hadday doonaan inay barnaamij wax dhaqaajiyaan waqtigay doonaan ay xamar buuxa inta isdaba kacaan ay Jowhar aadi jireen laakiin hadda waxay noqotay inay xildhibaanadii xaniban yihiin ilaa la helo diyaarad markaas madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka kiraysto oo kontomeeyo xildhibaan iyo wax qaada oo saa lagu qaado iyadoo la ogyahay weliba dadka la qaadayo iyo waxa ay u socdaan marka loo qaadayo Jowhar marka oo xildhibaanadan sheegaya marka arrimahaas hadda waxay ku muujinayaan dabcan siyaasad ahaan aan xildhibaanadii nafteeda in la xakameeyo inay ka mid tahay sababta wadada loo dayacayba wax badan oo wadada xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar ayaa dhowr jeer hore waxa ka dhacay weeraro lagu dilay askar xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabeelle iyo mas'uuliyiin kale waxaana adkaatay in mas'uuliyiintu ay wadadaas isticmaalaan sida kaliya ah ee ay ku iman karaan magaalada Muqdisho waa inay soo raacaan diyaarad oo ay dhanka hawada adeegsadaan. marar badan ayaa mas'uuliyiinta maamulka Hirshabeelle waxa ay sheegeen in wax laga qabanayo ammaan darrada ka jirta wadadan isku xirta Jowhar iyo Muqdisho oo al-shabaab ay weeraro toos ah ka geystaan oo xitaa 5 bishii Julaay ayna soo dhaaftay ay al-shabaab xildhibaan Xaaji Maxamed oo ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabeelle intay kala dageen gaari uu la socday oo marayay aaga magaalada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe ay halkaas ku dileen. siihayaha xilka ra'iisul wasaare Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa ka dhawaajiyay in dawladda nabad iyo nolol ee madaxweyne Farmaajo ee inta ka harsan muddo xileedkeeda ay juhdi iyo xoog badan gelin doonaan sidii maqaamka magaalada Muqdisho loo hirgelin lahaa loona dhameystiri lahaa. mudane Mahdi Guuleed ayaa sheegay in guul weyn ay tahay in go'aanka ansixinta baarlamaanka ee 13 xubnood ay ku yeelanayaan aqalka sare oo markii horeba ka timid codsi madaxweyne haddana ay ka shaqeynayaan sidii madaxweynuhu u saxiixi lahaa lana sugayo saxiixa madaxweyne Farmaajo oo muddo bil iyo bar ah oo sharcigaasi hor yaalla inuu saxiixo 13 xubnood ee gobolka Banaadir ka helay aqalka sare dhameystirkiisa waa ay hirgelaysaa waana fulaysaa madaxweynuhu waa meel marin doona inta dawladda nabad iyo nolol muddo xileedkeeda ka hartay waa in aynu si wada jir uga wada shaqeynaa saaxiibkay walaalkay mahasalaadna si wada jir ah uga shaqeynaa hirgelinta maqaamka caasimadda magaalada Muqdisho barbarkay ka baxdaba waa bakayla galeen ayuu yiri Mahdi Guuleed oo ka hadlayay munaasabad maamulka gobolka Banaadir kula wareegayay waxbarashada gobolka Banaadir oo ay hore u maamuleysay wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. kooxaha mucaaradka ee xildhibaanada ka tirsan iyo kuwa xisbiyada siyaasadeed ayaa hore ugu dhaliilay madaxweyne Farmaajo in xeerkii baarlamaanka meel mariyay ee 13 xubnood gobolka Banaadir ku yeelanaya aqalka sare in mar hore loo gudbiyay si uu u saxiixo balse uu ka gaabiyay inuu qalinka ku duugo. Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo labada aqal ee baarlamaanka uu soo gudbiyay ee ahaa gobolka Banaadir wuxuu xaq u leeyahay matalaad siyaasadeed matalaadii 13 xildhibaan ee aqalka sare ee golaha baarlamaanka oo ay golaha shacabku meel mariyeen una wada dabaal degnay dhameystirkiisa waa ay hirgelaysaa waanu gudan doonaa haddii Ilaahay yiraahdo madaxweynuhu waa uu meel marin doonaa isagoo hay'adaha sharciga iyo meelaha ay khusaysiin dastuurka iyo dhinacyada ay tahay inaynu la kaashano meeqaam aynu mar labaad ka wada shaqayn doono marka saaxiibkay walaalkay Mahad ee aan nahay dawladda ama xukuumadda nabad iyo nolol ee matalaadii baan u jeedaa aqalka sare meeqaamkiina waa inaynu ka wada shaqaynaa inta muddo xileedka nooga hadhay barbarkay ka baxdaa waa bakayla kale soo lama odhan jirin marka aynu ka shaqayno inta muddo xileedka xukuumaddan
ama dowladda nabad iyo nolol ka hadhay inaynu hirgelino meeqaamka magaalada caasimadda ama magaalada muqdisho ay leedahay waa wax lagu tiirsaday inaynu maanta marayno xafladda labaad oo ah wareejintii manhajka dhinacyada kale ee adeega ee caafimaadka iyo dhinacyada kale dowladdu ay tahay dhexe inay ku soo wareejiso gobolka banaadir waa kala shaqaynaynaa insha allahu marba marka ka dambaysana hadba wixii suurtagal aynu wada qaban karno waa ka shaqaynaynaa in guddiyo farsamo loo magacaabo meel markay soo gaadhaan ay wareejiyaan waa tahay daawadayaal waxaa intaasi nooga dhan warkeenni oo aad kala socoteen shabakadda warar t v inta aynu kulmi doonno warkeena midka xiga waa bahda shabakadda warar t v oo isku duubanaadina dhammaantiinba sidaas iyo nabadgelyo